طلع البدر علينا من ثنيات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. walaalayaan mar kale ku soo dhowaada barnaamijkii aynu u bixinay ixasuusi. waxaa idinla hadlaya oo hooskiina ah Siciid Cilmi Raage. waxaana ka daawanaysaan barnaamijkan telefisyoonka caalamiga ee la yidhaahdo Horn Cable TV. maanta waxaynu leenahay xalaqad cusub waynu odhanayno ixasuusi salaada. nebiga iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala labaduba salaada aad iyo aad ayay uga hadleen. qur-aanka meel walaad furtidba salaada wa aqiimu salaata wa aqiimu salaa wa aqiimu salaa. sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam salaada meel bay ku taallaa oo xadiid walba waxaad ku arkaysaa ama xadiid fara badan oo ka hadlaya salaada. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu salaada ka dhigay fard oo waa kii yidhi wa aqim asalaa wa aqim asalaa. salaadani markaa taariikh cajiiba ayay leedahay, taariikh cajiiba. salaada fadligeeda si aad u qiyaastid ayaan kaga sheekeynaya, aynu garanno qiimaha iyo qaayaha ay leedahay. axkaamta diinta oo dhan nebi maxamed asagoo dhulka jooga ayaa lagu soo dejiyey. qur-aan baa ku soo degay, axaadiis baa ku soo degtay, jibriil baa la hadlay, waxyi baa ku soo degay, ilaahay baa riyada wax ugu sheegay. boqol nooc. fadliga salaada si aad u ogaatid, nebi maxamed baa inta dhulka laga qaaday la geeyey samada sida loo soo faro salaada. yaan u fiirso, ilaahay mu odhan markaa salaaddii baan soo dejinaya maymaymayna ii kaalay buu yidhi. ilaahay baa intuu ka qaaday dhulka al-israa waa maka to masjid al-aqsa, almicraaj ilaahay samada cirka taxta carshi araxmaan ayaa la geeyey. saa la yidhi salaad baa lagu faraya. 50 salaadood ayaa nebiga loo soo geliyey qoorta isagoo faraxsan oo diintayda iyo ciddii aamintay waxay maanta u salaad baan u sidaa, khayr baan u sidaa. ayuu nebi muuse la kulmay, sida sheekadaba dee u garanaysaan. uu nebi muuse maxaa lagu soo faray? wallahi 50 salaadood baa laysoo farayo dadkii baan u gudbinaya. dadka ma karayaan, khibrad baan dadka u leeyahay. nebi muuse la yidhahda yuhuud baan ka soo baxay jaamacadeedii, adigu ku noqo ilaah xataa iga yare iga khafiifi. ilaa kolba marba uu soo noqdo lagu celiya, marba uu soo muuse celiya. 5 bay ku dhamaatay sheekadii. nebi muuse yidhi 5 xitaa kari maayaane orodayga khafiifi. suu ilaah baan ka xishooday, intaasoo goor baan ku noqday. ilaahay markaa wuxuu cirka ayuu ka soo hadlay, wuxuu yidhi laa yubadalu lqawlu laday, hadalkaygu isma bedelo. 50 salaad baan ku soo faray, ajarkii 50 baan ka dhigay, ficilkii 5 la kaalaya. sidaa ayaa horta salaada in lagu soo faradna laga soo dhigo nebi maxamed loo soo dhiibay. hadiyadda asagoo ilaahay inooga keenay ayaa inaloo keenay, qaata hadiyadan waxay ka timi ilaahay. nebigu ilaahay subxaanahu wa tacaala salaada waxyaabo ku tilmaamay. wuxuu ku tilmaamay inay faaxishada iyo dembiyada salaadu inaga reebi karto. wuxuu yihi ina asalaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar. salaadu faaxishada, zinada, kelimada xun, qowl ilfuxsh, waxaasoo dhan iyo wixii munkar ee dee dabiicadda bini aadamka iyo diiniba diidayso ayay salaadu inaga reebaysaa buu ilaahay yidhi. nebigii sala allahu calayhi wasalam axaadiis fara badan baa laga soo wariyey oo salaada khusaysa. ka ugu muhiimsan aan jecel inaan taabto iminka ugu horreysiyo waxa weeye, wuxuu yihi nebigu, ilaahay wuxuu yidhi salaada aniga iyo addoonkayga ayaa qaybsanay. yani subxaana allah, basharaftaa eeg. allahu akbar baad odhanaysaayo ilaahay baa ka odhanaya, aan ku dhagaystay. waxaad tidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, addoonkayga wuu ii mahadnaqay.
الرحمن الرحيم الضون كي ويني مالك يوم الدين سا كلبا والو جوابيا ادو ما مقليسي لكن والو جوابيا واي إلهي با كل دغيسنيا إلهي بانا كو جوابيا marka sheekadu maarayso مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلهي أرانيا أضون كي وحوي ويديستي وحويديستين وليه إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا إلهي نسوها هذه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إياك نعبد تأفر صدا أذانك عابدنا شيخ معابدنا وداد معابدنا أولياء معابدنا عد كلام معابدنا أذانك عابدنا اهدنا أذوق نهانوني مو أن شيخ قبل إيه صدري ما أذوق نهانوني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت على طريقي كوي كل نعمة ستي غير المغضوب عليهم كوت كعروتي غضب كاغي عرض الدول صارتي هنغا دغين ولا الضالين يكون الصلاة من النبا آمين مركاك صلاة وهالكاس إلهي كتاغنتي wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa ugu horeysay ummadaydu ka tegaysaa salaada markay timaado waa khushuuc fi salaa diinta waxa ugu horeeya laga tegaya cafwan diinta waxa ugu horeeya laga tegaya waa khushuuc fi salaa waxa ugu dambeeya diintan laga tegayaana waa salaada marka qofku yidhi muslim baan ahay ilaahay baan ka cabsanaya waan soomaya waan xajaya sakadana waan bixinaya mana tukanayo dee been buu sheegay waayo diinta wixii ugu dambeysay laga tegayaba waa salaada nebiguna wuxuu yidhi innaka iyo gaalada waxa ina kala sooca waa salaad يعني العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر قال نمو شرك نمو يا إنك وحي نور دحيس وصلاة توقو صدام بيس حديث كان شعالها إن كسو قنانا كالمدن يادو مهمة وحديث كان نبي ويلي أول ما يحاسب ما أنت يوم القيامة وحا أوه الرئي قف كان لقد ترينيا والله جا حسابينيا والله ني وبكين ثم مسؤولية بلقولي بيصمع reer baa lagu dhiibay diin baa lagu dhiibay carruur baa lagu dhiibay shaqaa lagu dhiibay naftaada waa ammaano xitaa xayawaanada konool agtaada ku agmaraya waa ammaano dhirtan lagu agbeeray baa waa ammaano hawadan ku nooshay waa ammaano jirkaaga iyo ciyaar waa ammaano wadnuhu waa ammaano carabku waa ammaano waa bayna xisaabi laakiin ta ugu horeysa intaan salaad intaan zaka laga weydiinin oo sadaqa lagu weydiinin oo tarbiyada carruurta lagu weydiinin oo waxba lagu weydiinin waxa lagu leeyahay horta salaad barta soo dhig salaadi halkan soo dhig salaadi marka la eegaya haddii salaadu marka idaa saluhat hadday hagaagto dee wuxuu leeyahay saluha saa'ir amali wax taa ka dambeeya oo ninka laga wareysanaya ma jirto wax ka dambeeya salaadi sax sama waa salaad sax ninka sii daaya ilaahay kaligu caabuday waa salaad sax albaabka u fura hadda ninkan may dambi loo xisaabin maayo ha laga xisaabin miisaan may laga xisaabin maayo way salaadii baba saxa salaadii ayaa laga aqbalay wuxuu nabigu laakiin ay salaadii hagaagi weydo waxa la oranayaa waa sunnihiisi eega sunnayaashu tukanayay ila laba ragcadood ba fajr ka horeeya afar marlaba ka horeeya dhuhr laba ka dambeeya maghrib laba ka dambeeya cisha laba ka dambeeya witrki iyo sunan kale iyo tahiyat almasjid iyo nafli waxba meesha yaala waba kuwa inuu eego hadii laga helo salaada caynkaasa ugu kaba salaadii faradki tiiba la waay salaad saxna maaha sunna salaadii si kabtana ma hayo nafl salaadii si kabtan ma hayo maxaa xala dee waa ka wuxuu nabigu وإذا فسدت هدي فسد الصلاة فسد سائر عمله عمل كيسي كلا أردن وفسره يا الله
ninkani xaj buu tegey, ingiriisku ka tegey, maraykanku ka tegey, kanaduu ka tegey, meel buu ka tegey, soontii ramadaan buu soomi jiray, sadaqu baxsaday, caruurtii buu u wanaagsanaa. may baa la yidhi, salaadii baaba fasaday, maxaa hadhay? marka salaadu caynkaasay daruuri u tahay. hala ilaaliyo walaalayaal salaada, yaanan la luminin. waxaan idinla hadlaya walaalkiin Siciid Cilmi Raage. barnaamijkii ixasuusi ayaynu ka hadlaynaa, idinkoo daawanaya tv-ga caalamiga loo yaqaano Horn Cable TV. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طلع